runtii waa dareen dhif iyo naadira waxaan ku faraxsanahay inay maanta ay garab taagantahay hooyaday oo qalinjibina dhanka kalena iga taagan yahay aabahay oo hooyaday farxadda la qaybsanaya macalimadii hooyadeed macalimadda oo noqotay khiyaartana daawatay jaamacadda bariga Afrika maanta waxa ka qalinjibiyay dufcadii 9aad ee jaamacaddaas ka baxa ha yeeshee waxyaabaha soo jiidashada lahaa isla markaana dhiirigelinta u leh bulshada kala gedisan ee ku dhaqan madaqada SC Khaatumo waxa kamid ah family-gana la taaganahay waxa sida muuqda waa hooyo iyo caruurteedii iyo xaajigii hooyada maanta waxa kamid ahayd qalinjibiyaasha ka qalinjibiyay jaamacadda bariga Afrika sida mas'uuliyiinta jaamacaddu ay sheegeen kal hore waxa ka qalinjibiyay 3 kamid ah caruurtooda haatan hooyadu iyana qalinjibinteedii ayaa maanta ahayd taas waxay ka marxab kacaysaa dhismaha qoyskaas marka waxaan jeclahay inaan balmaamada soo dhaweeyo dareenkeeda iyo qalinjibinta maanta ilaahay subxaanahu wa ta'aala marka hore mahad iska leh marka xigtana waxa leh awlaadaydii iyo aabahoodii iyo dhammaan family-gayga isu kay garab taagay waxbarashada in aan dhigto heerka aan maanta taaganahayna alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay baa mahad iska leh aad dareenkayga shucuurtayda lama soo koobi karo aad baan u faraxsanahay anigoo maxaan ku radaa ciyaalkayga ay garab taagan yihiin ilaa aabahood mahadda allah iska leh de shucuurtayda lama soo koobi karo iyo farxadaydaba waa run 3 carruur hore aan dhalay baa ka qalinjibiyay mid ka mid ah macallimiinta jaamacadda bariga Afrika ayay ku jirtaa waa tan garab taagan farax macallimad bay ii noqotay alxamdulillaah rabbil caalamiin dhiirigelinteeda koowaad dhiiriyaasheeda koowaad ayada ka mid ahayd aad baan ugu faraxsanahay maadaama ay macallimadna ay noqotay maantana ay garab taagan tahay iyadoo maxaan ku radaa meel fogna iiga timid masterna u aaday waxbarasho damacada inay farxadeyda igala qayb gasho alxamdulillaah rabbil caalamiin aad baan u faraxsanahay aad bay maasan tahay waxa la yiraahdaa raggu dumarka way yasaan ama jukooyinka u duraan laakiin aabahan wuxuu ku guuleystay inuu caruurtiisa dumar iyo xaaskiisa ay ku jiraan oo waxbarashadooda ku taageero bal dareenkiisa iyo fariinta u diray ragga Soomaaliyeed marka hore ilaahay subxaanahu wa ta'aala baan u mahadinayaa noo fududeeyay hawshan iyo waxbarashada naguna dhaliyay qalbigayda ku ilhaamiyay in aan ubadkayga iyo xaaskayga waxbarashada ku daro oo ay ka ilaa ay gaadhaan inay ka qalinjibiyaan oo heer master ay gaadhaan ilaahay baan ugu mahadinayaa marka labaad waxaan u mahad celinayaa macallimiinta iyo maamulka jaamacadda iyo cid kasta oo hawshan hirgelinteeda iyo jaamacaddan ku lahayd sida boardka iyo macallimiinta iyo intii soo abaabulshayba marka saddexaad waxaan u mahad celinayaa marwadayda maanta qalinjibinteedii aan joogno amran xasan maxamed jibriil oo inta badan duruufta waxbarashada qaybta labaad isu kay taagtay ee waxbarashada ku dhiirigelinaysa ee ku kaantarooleysa ee nafteeda u dadaalaysa ee waxbaranaysa ee xagna shaqadii kaga jirtay u taagnayd ee daruurigoodii wax badan iyada ayaan uga mahad celinayaa la'aanteedna waxaan rajaynayaa inaanay hawshaas noo suura gasheen idinka qolada saxaafaddana way idinka mahad celinayaa mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaah waxaan kelmadeeda ina siinayaa gabagabadii macalimadii hooyadeed macalimadda oo noqotay bal dareenkeeda iyo waxay dareemaysay marka ay fasal ku jirto iyo marxaladii ay soo martay marka koowaad Allah subxaanahu wa ta'aala waa mahad iska leh ka gadaal maamulka jaamacadda boorka jaamacadda baan u mahad celinayaa fursadda ii siiyay inaan ka mid noqdo macallimiinta jaamacadda anoo ka mid ahaa ardaydii jaamacadda hore u dhameysay kana dhameysay 3 kuliyadood waxaan ku faraxsanahay inay maanta ay garab taagantahay hooyaday oo qalinjibina dhanka kalena iga taagan yahay aabahay oo hooyaday farxadda la qaybsanaya runtii waa dareen dhif iyo naadira waana fursad dhif iyo naadira oo la kulankeeda iyo inuu qofku la kulmo ay dhif tahay waxaan u hambalyeeynaa hooyaday oo kamid ah qalinjibiyaasha maanta anoo guud ahaan ardaydana halkan u marinayo hambalyo aad baan ugu faraxsanahay runtii dareenkayga lama soo koobi karo anoo la mid ah caruurta intii kale kana turjumaya si gaar ah kana mid ah macallimiinta jaamacadda ka mid ah fulinta jaamacadda waxaan u mahad celinayaa cid walba oo fursad ii siisay inaan jaamacaddan wax ka dhigo ugu horeeyo gudoomiyaha jaamacadda gudoomiyihii hore jaamacadda Cabdilaahi Cabdi Samed gudoomiye Axmed Shaafi Cabdi Shaafi gudoomiye Cabdi Shaafi runtii guud ahaan waa u mahad celinayaa si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa aabaha iyo hooyada iyaguna fursad ii siiyay inaan wax barto isla markaana dadka wax output ku celiyo oo waxaan baro
waxaan si gaar ah mar kale ugu hambalyeynaya farxadana la qaybsanaya hooyaday waa mahadsantihiin